وبرنامج قال لحظة نكاح عبد العزيز محمد حسين إيوه فاطمة روبلة فارح ومانتي وبيشا أبريل سيدادي لباتن كيدا لبدا كن إيه لغي توقع كدعي مقالوين كمتانها قارهان مينيابلس xafladaas oo si aan caadi ahayn oo milka ka muuqato loo soo sharfay loogana soo qayb galay ayaa dhinaca iyada kala duwan ee xididku ay isku dhaafsadeen erayo run ahaantii taariikhi ah oo ay ummadda kale ay ka faa'iidaysan karto nikaaxa ayaa isagu aad uga duwan nikaaxyada kale oo aan soo aragnay marka la eego dhalinyarada iyo ilmaha da'da yar oo iyagu goobjooga ka ahaa garanayana muhiimadda uu leeyahay nikaaxa waxaan ilaahay uga rajaynaynaa in uu reerkii isku waara ee ubad khayr qaba ee dalkooda iyo diintooda anfaca uu ilaahay kala siiyo annaguna waxaan leenahay mabruuk annagoo u mahadcelinayna guud ahaan dadka ehelada ah ee labada dhinac wiilka iyo gabadha ee ka soo qayb galay xafladda sidaa iyo daawasho wacan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علماء الدين تا عقلاده وحقلتك اندرقلتك dhalinyarada haweenka ama dumarka guud ahaantiin waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh madashan maanta isugu nimid oo iyadu ah madal taariikhi ah oo u dhaxaysa laba bahood oo Soomaaliyeed waxaan jeclahay inaan idinku soo dhaweeyo anigoon erayadii loogu talagalay aan ka boobin qofkii loogu talagalay ayaa waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo Cabdi Tahliil ama Cabdi Gaafa si uu isagu bal noogu urbixiyo sababta aan meesha u joogno wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hadalka iskaba soo gaabsho anigoo dhankii bal wiilka u janjeera oo qoladii intaas ka koobnayd oo wiilka dhankiisa ahayda ehelada kaleeto oo dhinaca kaleeta hadday taw tahay hadday adeer tahay hadday ehelo tahay haddii qaraabo ay tahay intaas oo dhan dhinacaas kale waxay ka codsanaynaa Faadimo Roobla Faarax oo aan u doonayno Cabdicasiis Maxamed Xuseen qaraabadu eheladu inay gabadhaas nasiiso reerkaasna aan wada dhisno taasaanu maanta hawshayadu ahayd eheladana ka codsanayna assalaamu calaykum arooska iyo aroosada arrintooda ayaa la isugu yimid gabadha waxaa mas-uuliyaddeedu saaran tahay ummadda Soomaaliyeed waxaan hadda u gudbinaynaa ugaaska Yuusuf Xasan warsame oo ugaaska reerka ah Yuusuf ku soo dhawaaw gabadha nala weydiistay bixinteeda iyo diidisteeda assalaamu calaykum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كفتن يركهر مرصد قضي عبد الله استاقو كوه صدوع هاي وسوع. ولا لي مركو مور رئيسا وحنا جلال هاي شغل وهذا. وحن إذا كلام هذا علينا إن قيمة يحشمد آذو بلارن وآذ noo qabtaan noona muujiseen waxa weeye qofka ku weydiista wax ilaahay abuuray wixii ugu qiimo badnaa qofka ku weydiistaa waa qof ku qiimeeyo marka ilaahay waa mahadda iskale ilaahayna siiyey gabadha sharafta noo soo jiiday waa mahadda leh
intii ilaahay ka sokowna waxaa mahaddeeda leh ehelka gabadheenni intay is arkoodeen nagu sharfa inayna weydiistaan waxaa wadaadka hadalkiisa ku jiray aan idhaahdo cali siyaad haddii la diidi lahaa haddaad diidi lahayd haddii la yeeli lahaa horta diidma haba sheegin meesha ma taalo wax la isugu yimaado wixii sida culimmadu ay sheegtay ugu sharaf badnaa uguna fadli badnaa weeye waxa meesha aan ku haynaa bilowgooda waa reer xalaala in aan dhisno oo ku soo biiraya bulshada islaamka ah lana doonayo inay ilaahayna aan ka rajaynayno inuu noo fududeeyo ajri xasanaadna naga siiyo waxaan markaa anigoon hadalka badin leeyahay walaalayaal haddii aad Faadumo Rooblena weydiisateen iyadoo agteena qaali ka ah oo aan raqiis ahayn qaalinimada ay agteena ka leedahay ayaanu idinku siinay ku qaata waan mahadsan tahay ugaas waana tii aan malaynayni oo aan walaalaha iyo ka malaynayni Faadumo Rooble qaalinimadeeda annaguna waa midda aan ku doonaynaa wixii qof bilaadan oo yani sharaf leh wax ugu haddii ilaahay kuu roon yahay ka qaalisana adduunyada ma jiraan wixii u qaalisana adduunyadaanan idin weydiisanay inaad na siisaanna waa idinka malaynaynay walaalaha yaa tihiin waanu ku qaadanay sharafteedii iyo qiimaheedii iyo midda aan awalba ku dooranay weeye waxaa noo raaca hawl yar oo waxay la tahay sheekheedii joogo gabadhi inaad noogu dartaan meherkeedii yaanu codsigayaa ku darsanayna waa googoosanen waxaa jiray hadda ka hor munaasabad sidaan oo kale oo weliba aada uga ballaaray su-aashaas oo kale la soo jeediyey jawaabtii ilaahay amarkii kulley nasiibka anugu maalinta ay gala anaa bixiyey jawaabtii qaybtii dambe waa laga aamusay anna aayaraan ka fadhiistay mar dambe soo xasuusteen waxaan idhi haddii aydnaan soo xasuusan lahayn waxaad noqon lahaydeen ninkii inta dukaan aaday oo shaar gatay shaarkii lacagtii inta bixiye ka tegey isagoon ogey marka tii baad ku sigateen laakiin ma yidin hadda waad iska qabateen waan ogolaanay iyadana in la nikaaxo waa mahadsantihiin walaalayaal سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله الذي أحل النكاح وحرم الزنا، نحمده حمدا يليق بجلالة عظمته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. صدق رسول الله. مركور إلهي سبحانه وتعالى يا مهدله isla markaasna waxaa mahadleh odayaasha oo labada dhinac oo igu sharfay in aan isu xalaaleeyo wiilkooda iyo gabadhooda iyadoo la marayo wadadii sharciga aan aaminsanayn ee sharciyada islaamka ee ku mahadsan yihiin. waxaan kaloo rabaa in odayaashan la kaftamo kaftana meesha socdaa la yiri oo waxna lagu kala qaadanayo. marka odaygii ugu dambeeyay hadaladiis waxaa kamid ahaa hool yaraan noo hartay oo aan rabno inaad dhamaystirtaan. marka waxaan dhihi lahaa cagsi waayo, hool weynaa hartay tii oo magaca ilaahay lagu xusaayay magaca rasuulka waa ka weyn tahay tii dhaqanka. marka waxaan rabaa xoogaa inaan kaftan aan ka dhigo oo xaqiiqana ay tahay hadduu ilaah yidhaahdo. intaas kadib anaga waa taageersannahay dhaqanka soomaalida maadaama uu waafaqsan yahay shareecada in si sharaf leh oo labada reer ay is og yihiin si loo wada ogaado. maaragtay Abu Xaniifa wuxuu leeyahay guur sir ah guur ma ahan.
wuxuu ula jeedaa wuxuu dhahay laakiin laba hadday ogaato waa public uu noqday marka جماعة ولا جيدا ضدك إلي أوجادان والله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وحاي لنا عيقة فرية أو بذح ولالكي علي روب الفارح علي روب الفارح هو ولي قبلنا شريعة الإسلام سيقبطه أو أحاديثنا معركة تلمام يسوع قبلنا ولي جيدا وإنه رالي كان قضاء سيدة إيدا رالي وطاي إنه رالي كتاي وإيشاكتي ميركي وعصتي وحق إذاها ولي وحن ربا إنه رالي كي هي ولاية النبسو وريجيو علي روب الفارح waxaad leedahay anoo ah cali rooble faarax waxaan sheekh xasan jaamici waxaan kugu wareejinayaa wilaayada in gabadha walaasheeda aad ku mehriso cabdicasiis maxamed xuseen fadal aniga cali rooble faarax sheekh xasan waxaan ku fasaxay inaan ku mehrisid cabdicasiis gabadha walaasheeda rooble faarax جزاك الله خير ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين الاخ عبد العزيز محمد حسين أنكحت أو زوجت الأخت فاطمة روبلة فارح برضاها وبرضا وليها أو موكلتي فاطمة روبلة فارح بمهر $5,000 أمريكي على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والإخوة الموجودون في هذا العقد هم شهود والله شهيد على ما نقول. هل قبلت هذا المهر والعقد؟ هل قبلت هذا المهر والعقد؟ الصومالي waxaan kugu meheriyay adoo ah Cabdicasiis Maxamed Xuseen gabadha waxaan kugu meheriyay liirada magaceeda Faaduma Rooble Faarax oo dalbatay meher $5,000 oo Mareykan ah iyadoo ay waafaqsan tahay kitaabka Ilaahay sunnada Nabiga Calayhi Salaam ee marxaati ka yihiin dhammaan odayaashii hadlay iyo walaalaha halkan jooga Ilaahay inuu marxaati ka yahay uuna markaasi uu wakiishay wilaayada buuxdana igu soo wareejiyay Cali Rooble Faarax meherkaasi caqdigaasi heshiiskaasi iyo mas'uuliyadaasi ma aqbashay barakallahu lak wa barakallahu هذا كله جد